Waxaa isa soo taraya xogaha iyo macluumaadka ka soo baxaya weerarkii dagaalka iyo soo kala qaraxyada isugu jiray ee ka socday xabsiga dhexe ee Xamar waxaana ilaa ay hadda la wariyay khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira dhinaca raggii maxaabiista ahaa ee weerarkan gudaha xabsiga ka fuliyay ama shaqaaqadan abuur waxaa la sheegay in laga dilay ugu yaraan 4 xubnood oo 3 ka mid ah ay ahaayeen dagaalamayaasha al-shabaab sida la sheegay halka qofka kale aan weli xogtiisa helin balse aan idinla wadaagi doono dhinaca ciidamada dawladda sarkaal ka tirsan ciidamada Bambeeda ayaa dhaawaca sidoo kale 3 kale oo ka mid ah askarta ciidamada dawladda gaar ahaan kuwa asluubta ee ilaalada ka haya xabsiga ayaa la dhaawacay halka ay ka dhacday dhibaatadan waxaa lagu magacaabaa Shantraale waa qayb ka mid ah xabsiga dhexe waxaa jirta in qaybta kale ay ku xiraayeen ragga xukunka uu ku dhacay ama dilka toogashada ah lagu xukumay ay ahayd goobta weerarka laga soo qaaday raggan waxaa la sheegay in ay haysteen hub noocyadiisa kala duwan sida bambaanooyinka qaraxyada ah AK47 biskoolada iyo hub kale oo aad u culus waxaa la sheegay in dagaalkooda ay ku soo beegeen xilliyada ugu fursadaha fiican ama ilaalada ugu yar xabsiga ay joogaan taa oo micnaheedu ay tahay in raggan ay doonayeen weerarkooda in uu ahaado mid guuleysta ilaa ay hadda dawladdu faahfaahin kama bixin laakiin waxaa la isweydiinayaa sida ay ku dhacday xogta ilaa iyo hadda Dhaxalgal TV uu hayo waa in raggan ay haysteen hubkaas ayna ku qarsadeen goobo ay ka mid yihiin barkimo ay haysteen iyo joodarayaal su'aalaha la isweydiinayo waxaa ka mid ah rag xukun sugayaal oo dil toogasho ku dhacay ma helaan agabkaas qofka haddii xukun maxkamadeed mar uu ku dhaco waa xabsiyada sharciga ka jira waxa ay tahay in uu helo qofkaasi daryeel qoyskiisuna ay u keenaan wax walba uu u baahan yahay joodariyo iyo sidoo kale barkimo ay haysteen hoostooda ayay gashteen dabcan hubka ay isticmaalayeen oo dhan waxaana taasi ay keentay in raggan muddo ay dagaalamaan askar ka tirsan ciidamada dawladda ayaa ka falceliyay isla markiiba dagaalkooda 3 cabdibile oo gaadiid ah oo gaar ahaan kuwa gorgor iyo gaadiid kale ayaa goobta gaaray waxaana halkaas ka dhacay dagaal kooban xogta ilaa ay hadda aan helayna waxay sheegaysaa in haddana weerar kale uu hadda ka dhex qarxay xabsiga ka oo ah rogaal cilis waxaana socda rasaas xoog leh haddadan aan idin hadlayno xabsiga dhexe wuxuu ka mid yahay meelaha aadka loo ilaaliyo laakiin halka ay wax ka dhaceen waxa ku xiran rag uu ka mid yahay Sayd Cali Macalin Daawud oo ah ninka xaaskiisa hore u gubay dilka toogashada lagu xukumay waxaa kale oo halkaasi ku xiran sarkaal lagu magacaabo Qoslaaye oo ahaa sarkaal ka tirsan ciidamada dawladda dilna ku eedeysan sidoo kale dil toogasho lagu xukumay waxaa ku xiran nin kale oo lagu magacaabo Qoone oo isaguna ninkaas lagu xukumay sidoo kale xabsiga dhexe guud ahaan dad badan ayaa ku xiran oo ka mid yahay General Sheego Axmed Cali oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dawladda oo sanado xabsiga lagu xukumay qorshuhu ma in dad la sii daayo ma in dad nolosha lagu dilay ayuu ahaa ilaa ay hadda ma hayo Dhaxalgal TV xog rasmi ah oo arrinkaas cadeynaysa laakiin badi bulshada Soomaaliyeed waxay isweydiinayaan maxaa xilligan ku soo beegay weerarka xabsiga dhexe yey tahay cidda ka dambeysa ujeedada weerarkan muxuu yahay xog faahfaahsan lama hayo booliisku warbixin ma dhiibin ilaa ay hadda oo dagaalka ayaa dabcan socda khasaarihi ilaa ay hadda lama shaacin laakiin ilaa ay hadda waxaan helnay in 4 qof oo al-shabaab 3 ka mid ah ay yihiin qofka kalena wali aan la cadeyn waxa uu yahay ciidamada dawladdu ay dileen ciidamada dawladdu iyaguna laga dhaawacay sarkaal sidoo kalena ay jiraan 3 askari kale oo uu soo gaaray dhaawac isla markaana ku dhaawacmay dagaalkan foolka ee dhexmaraya raggan xabsiga dhexe dhexdiisa hubka ku haystay iyo sidoo kale ciidamada dawladda maaha markii ugu horeysay ee tan oo kale ay dhacdo dhowr sano ka hor sidan oo kale waa ay dhacday xilligii dawladda Farmaajo iyo dawladda Maxamed Xasan Maxamuud xabsiga dhexe mar dab baa ka kacay ayaa la yiri oo dagaal isku bedelay dhowr jeer oo kala horan rag hubeysan ayaa halkaasi waxa ay ka geysteen arbushaad maxaa lagu hortagi karaa dabcan ay isleedahay maxaa ku soo beegay adi ahaan aragtidaadu maxay kula tahay daawada muuqaalkan like saar siina share garee aragtidaadana qaybta hoose comment-iga noogu reeb aad iyo aad u mahadsantahay saaxiib